السلام الله عليكم سوري والله أصحاب تقاليقة حيدر طبعا waxaan rajaynayaa inaad dhammaantiin wanaagsan tihiin dabcan waxaan rabaa halkan aan ka hadlo lacagihii isbuucii dhaweydaan la soo wadaagay qaarkood inay dhaqaaqeen qaabkay u dhaqaaqeen waxaasoo dhan insha Allah inaan ka hadlaaba iyadana wax aad muhiim u ah si aad iyadana cilmi uga heshaan dabcan marka lacaguhu waxay ahaayeen 6 lacagood dabcan lacagaha DX2 ay la socotay dabcan iyaguna isdiyaarinay ku jirin inkastoo ay kor u dhaqaaqeen laakiin waxyaalaha ay ku dhaqaaqeen yani waadixa noqosin marka lacagahaas waxay intii ka maqan laakiin lacagahan Euro NZD iyo AUD CH lacagaha side by calculator ina qaataan waayo waxay ahaayeen lacago isbuuc yani dhowrkii isbuuc dambe dabcan side loo eeganayay inay dhaqaaqaan rajaynayaa insha Allah inay sii dhaqaaqi doonaan ilaa meeshii hadda ku xirmayno isbuucan ku xirnay insha Allah ay tagayaan meeshan oo targetka 560 dabcan loo combining ku sameynayna xanaho falanqaynteena doodka qaabkan forecasting gareynay hadii qaabkaas sameeyso qaabkaas aan qaadanayna dabcan yani waxaan rabaa inaan dib ugu laabto videogi si aad idinkuna yani waa aragtaan qaabkan u forecasting gareeyay dadka qaarkood ka faa'iideysteen ma sha Allah profile ka sameeyay idan waxaad ugu faraxsanahay dabcan hadaan laabto dib videoga عندي اكس واي ده قبل طبعا اسبوعي هذا هي دي اكس واي ده عمل لعقت يورو طبعا دي اكس واي ده وقت lacagtan wali way sii socotaa oo continuation laga sugayay ay tato levelka dhabarka laakiin dadka qaarkood way ka faa'iideysanayeen waayo sababta uga faa'iideysanay waxa weeye inkastoo ay lacagta maxaa lahaa euro USD oo badaniya inay lacagtaas lacagaha USD ay u dameyso inay aadeen maxaa lahaa jihada bayga tan jihada salka ay soo yani waxa laga wadaa waxay sameyn sax laho steep like kadib all the way ay ku sii soconayso laga kama qaadan san video waa ku sharxay طبعا انت حالتي ku jirto ujeedaa Japan ee gashay dabcan video ka horeeya ka hadlay xaaladaheeda iyo qaabkii u dhaqmayso insha Allah waxaan laga rajaynayaa DXY inay halka levelka ay tagto double topka ay tagto dabcan correction ay ku tagto oo structure qaab dhismeed aad u badan ay ku tagto kadibna ay jihada salkaas waayo hadii soo aad minis dabcan meeshan ka falaqaynay xaggan iyadoo qadariya oo xsaas soo dhaqaaqay correction wali dabcan sababta soo dhaqaaqdina hadan aad ahaan inay sheego dabcan halakan structure ku jira awal kore halakan maxaa lagu tagay waa double bottom hoose maxaa lagu tagay qaab structure lagu tagay qaab shop plus double bottom hoose all the way in la sii daayo hadii la tagay 9 rollkii maxaa lagu tagay qaab impulse dabcan kadib maxaa dhacay in all the way la jibiyay waxaa ratis lagu sameeyay hadho 9 roll waayo hada directly waxa dhaho structure qaab dhismeed wuxuu ku socdaa qaab يعني لو ترى طبعا impulsive دعي pass دعي correction هدوي double بقاسة طبعا عشان أول كورة double بلو مهسي بهين بقصوها هذا عيا double بلو بقاسة retrace لو سميه طبعا retrace وكان كنين all the way 9 roll كواكن 9 roll كاين دي impulse لو تقومينس ولا جبينية هلو محل سمينية in retrace لو سميه الله 9 roll كنين all the way nitro kala tago kadib nitro qaabkii lagu jibiyo ilaa ay sameynayso yani structure lagu soo kala alinayo xagee loo keenayaa nitro kan hoose waayo lacagtan waa lacag down way caadi macquul hadii halka ku tagto passive inay sii deyso laakiin caadi ahaanta waxaan ka eeganayna anaga lacagtan waxaan ka eeganayna dabcan sababahaas sababay dabcan lacagtan inay steep flag dheer soo sameyso soo maxaa dhacaya lacagta USD idan waxay sameynaysaa waxa la جالسة جهة عبقى بيالسة بحيث من يستقاب اسم النوع كلاس منسة وأيوه نوضع العقود inverse speed نيدا إذا حتى دوقف أسبوعي دويد وهذا كان قاطي لا 9 رول كاو هيسين كري وأيوه هدي وأخي 9 رول كان باس بلو تيجي هذا عي in all the way العكتاسي جهة السيب دلش وأبسي هذاش أركون يعني lacagta ku xigtaa gudbo dabcan suuqaasi ma sii socon doono because awoodiisiiba
waxa muhiim ah inaad qlaqaynta isfahamta awoodid waayo rules aan xisaabinaynaa dabcan hadday saas samayso saas samaynay hadday saas samayso saas samaynay because wax la isla garanayo rules uu ku dhaqmayo suuqan fahamtay anu gudbo lacagta kale xigta oo ah euro because da lacagtan jiho waadaxa ka hadlo maxaa jiho noo yeelanaysaa lacagaha dabcan USD ku jirto okay lacagtan iyadana waa la mid baan filayaa dabcan xagee mini double top bay kasoo laabatay dabcan xagee laga sugayaa insha Allah waxay yaraan soo ani bayamiyo dan chartiga dib ugu laabto هذا أكيد واحد أضواء العقود لعقتهم وليكس تنوى USD هذا ديكتيد قابل سميت كفيري قابل سميت كيلو ده ديكتيد حاكا مغنية ده ننتم بس كقنيو هذا عاي مهشن طبعا وسيم هذا كان هذا عاي correction هو سجيدا داي هو السندنا هذا عاي كان correction هو بجيدو السندنا sidoo kale meeshan maxaa dhacay sending bade dabcan sending baa leeyahay xaggana maxaa dhacay sending bade my structure dhammaystiran dan structure kan aan caad ahaan idinku wadaxiyo maxaa dhacay halkan passive correction aa dhacay dabcan getting a night rulkii all the way maxaa dhacay in isrogay maxaa dhacay another structure aa dhacay meeshana maxaa dhacay fiiri structure hoos ujeeda kan maxaa structure kor ujeeda هذا natural quality all the way so هذا قسم estimation another structure قسم اسمه وعضينيه عكس يبسي هذا هذا عميشة فيري structure كان هذا كجرة structure كان ماشى كجرة هذا ما لسه إني same فيري هذا عي correction there ولا صور عي هذا عي correction there ولا صور عي ليتك واقع مش المحاول جدا والله structure same أو شيء حاجة جوتا دور تكتب ده حاجاتنا دور تكتب بيه وده إذا هو عجيبة طبعا بتسمى كهذا سميشيد أو أظن فهميشة طبعا طبعا قاب كاسيد أنا قد منه أنا علاقتي إني all the way ماشي كلاوته وايو that lower time frame كيكتد وأنا time frame كا هذا structure كواير الماشين كسميسي سوف تسكيل أنسي أنا كلا طبعا inkastoo ay soo socoshadana ahayn soo socon karayso because structure bay dhisaysaa lagu soo down garaynayo oo sujada silka lagu soo diriyo qaabkaas waxay tiriyo ma sameeyeen oo waxay tiriyo kama qaadan iyada okay dan ugu lacagta xigtaydana correction meeshan ka sameeyay kadib all the way lagu kala wareego jihada abka target waxay noqonayaan night fold ka dabcan structure oo overall structure guud noqotsana means waa kan antaga waxay samaysay USD tawshish saddexaad ee dhameysatay dabcan kadibna all the way sidiis inkastoo structure qurux badan oo meeshan ku jiray waxaan daryeelada kala qaadan waa iyadana tawasha ku jiray dabcan waayo lacagahan soo socda saad u qurux badnaa horta lacagtan waxa ogaataan inay tahay lacag aad u muhiim insha Allah loogana sugayo waxa la hoobay aad iyo aad weyn oo impulsive dabcan sidii lacagii hore oo CHJPY lacagtii isbuucii dhaweydina qaabkaas kale inuu dhaqaaqo dowladda taagan tahay passive suuq waadaxa jibin all the way up iyadana waa tan lacagta inii sheegay all the way dhaqaaqday lacagtii qaabkii aan u sheegnay waa dhaqaaqday iyadana wallahi qurux badan oo intii kaga jiro waaye masha Allah argeeni insha Allah inay sii dhaqaaqi doonto sii deegi doonto okay lacagta kala gudbo noocan waa tan lacagtii anzili CHF iyadana lacag aad u badan leeyahay ujeedaan lacag ka faa'iidaysteen dabcan dadkii waa ka faa'iidaysteen si rajayna insha Allah inay sii dhaqaaqi doonto all the way absi aadi doonto insha Allah iyadana similar tahay lacagtan AUD will be EURUSD or because lacagtan USD oo dhamaysto so maxay ka sugeynayaan jiha aaban ka sugeynaa inay correction meesha samayso kadibna all the way lacagtan ku sheegay lacagtan way qaar waa ka faa'iidaystay laakiin adiga waxay ka gelin insha Allah هذا all the way we see this flag up خاطر إذا السهم كستو lacagtan waxay leedahay rex لكن correction
4 ama dhaqaaq 4 ay dhaqaaqday iyadana qaabkaas oo dhaqaaq correction oo dhaqaaqday okay lacagta xigta waayo waxaan ka sugaynaa lacagtan inay dhaqaaqdo waayo isbuucii dhaweyd baysan dhaqaaqin waxaa laga sugayaa hadda inay all the way ay jiha bedel طبعا AUD CHF iyadana waa tan oo way dhaqaaqday iyadana insha Allah waxaa laga sugayaa targetka inay gaarto ama targetkan iyadana lacag aba wey oo isbuucii hadda dhaweyd aan ka hadlay ama gudbo lacagta xigta waadixa sidoo kale haddaan gudbo lacagta ku xigta euro NZD maadaama NZD CHF ay jiha yeelatay minus maxaan ka sugaynaa lacagtan euro NZD waxaan ka sugaynaa waxa weeye haddaan structureka guud ku tuso maxaa meeshan ku aragtaa waxaad ku aragtaa waxa la dhaho lacagtan inay correction samaysay maxaas ay dhici karaa waxaa dhici karaa waxa la dhaho intay correction ku jirto lacagtani lacagta NZD CHF iyadana correction ay ku jiraysaa markay lacagtan jiha waadix ku tuso minus euro NZD tan yani lacagtan NZD CHF na jiha waadix ku siinaysa maxaa laga sugayaa lacagtan all the way ay soo dhacdo because laba taabasho ee lacagtan ay soo dhacdo jihada sirka ay soo aado iyadana laga rajeynayo euro NZD na waa tan dabcan iyadana way soo dhacday inkastoo hadda laga sugayo qaab correction noocan ay ku jirtaa in ay natural ku tagto kadibna all the way ay soo dhacdo imanaysa ilaa targetkan iyadana waa taasaa intiri qurux badan ina siisay iyadana qaadanay lacagihii waa kuwaas 3 lacagood kamid way dhaqaaqeen 3 kamidana stable ku jira